السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالو wanaagsan marbaad joogtiin. Magacaygu waa Saad Cabdul Ibrahim kamida macallimiinta macadka Modern. So waxaan rabaa inaan soo gudbiyo maanta casharkeeni saddexaad ee bookeni Hot English Conversation. Waad nagu barteen inaynu markaas aan ku soo gudbino barteeni YouTube-ka ee Modern Online College. casharkan waa mid kamid ah casharada markaasi yani aynu ku soo diyaarinay bookeni Hot English Conversation. waana cashar aan isleeyahay yani ardaydu inta cashar booga ka kooban yahay. I think casharkan haduu yahay number 1 yani hadiisan noqon number 1 yani number 2 buu noqonayaa. waa hot conversation yani waabsi waa meesha u dambeysay weey. Okay, wala isla aragno marka wuxuu yiri kii koowaad soo booda A B sheekaysan doonto insha Allah. arday koowaad soo booda wuxuu yiri oo saaxiibkiisa wuxuu ku yiri intuu eegay buu wuxuu ku yiri isagoo hadalkii uu sheekaysa aanan bilaabanin wuxuu ku yiri what happened to you. Okay, what happened to you means waxa weeye xabuu dhacay. saaxiibkiisii buu arkay oo jareynaya lididaya cali ama qoyniya dhuusi yani oo baa wuxuu ku yiri markaas what happened to you xabuu dhacay. what happened to you xabuu dhacay. you are quivering yani waad jareynaysaa. you are quivering waad jareynaysaa. sweating waad dhididaysaa. sobbing waad oynaysaa waad raacalaysaa. and fainting waad dhuusaysaa yani. are you afraid of me? aniga miyaad iga cabsanaysaa yani intaa oran ma cabsida aniga adiga cabsanaysid miyaa buu yiri. aan soo celiyo what happened to you xabuu dhacay. you are quivering waad jareynaysaa. sweating waad dhididaysaa. sobbing waad raacalaysaa waad oynaysaa. fainting waad dhuusaysaa. are you afraid of me? aniga miyaad iga cabsanaysaa buu yiri. kala soo booda wuxuu yiri how dare you say that yani sidee baad ugu dhiiratay yani inaad sidaas dhahdo. how dare you say that sidee ugu dhiiratay hadalkaas aad ku hadasho. disgraced waxaad markaas email aad ugu dhacday myself nafsadayda. disgraced yani waxaad dhaawacday ama meel aad ugu dhacday myself yani nafsadayda. Palakinse I will promise you waxaan markaasi aan ku ballan qaadi doonaa buu yiri. Palakinse I will promise you waxaan ku ballan qaadi doonaa that I will peel your skin with my fingers yani in yani maqaarkaagii aan ku fiiqi doono maxaa weeye cidiyahayga inaan ku fiiqi doono ama farahayga inaan ku fiiqi doono. aan ku soo celiyo Palakinse I will promise you waxaan ku ballan qaadayaa that I will peel inaan ereyga peel yani waa fiiqasho weey. okay, that I will peel inaan ku fiiqi doono your skin maqaarkaagii with my fingers yani farahayga inaan ku fiiqi doono ayaan ku ballan qaadi doonaa buu yiri today maanta. kii kala soo wada xiriir wow Allah I admire her speaking. I admire it yani waxaan la dhacay waan jeclaystay at your speaking hadalkaagii ayaan jeclaystay buu yiri. yani saa u hadlayso baan ka helay buu yiri. okay, si kaftana buu ula jeedaa laakiin kama helin. okay, wuxuu raacay marka because sababtoo ah you are speaking as a hero like me yani waxaad u hadlaysaa sidii geens anigoo kale ah yani sidii geens anigoo kale ah amal u hadlaysaa buu yiri. wuxuu yiri I admire it yani waxaan jeclaystay at your speaking hadalkaaga because sababtoo ah you are speaking waxaad u hadlaysaa as a hero like me sidii geens anigoo kale camal ah ayaad u hadlaysaa. Palakinse buu yiri I am gonna say to you waxaan doonayaa inaan ku yiraahdo I am gonna say to you waxaan doonayaa inaan ku yiraahdo. you can waxaad dhihi kartaa yani I am going to say to you yani I am going to say to you inta dhihi lahayd formka contract oo la soo yani contract formka ee la soo gaabi isticmaal oo ah I am gonna say you. okay, waxaan doonayaa inaan ku yiraahdo Palakinse I am gonna say you waxaan doonayaa inaan ku yiraahdo fit down on the ground yani fit down on the ground means waxa way stage yani haswaalan stage. fit down on the ground yani stage haswaalan stage buu yiri. fit down on the ground stage aga dhigo stage buu yiri. if not adikal hadii aad iswaasho balaas ka dhigto waxa weeye you will vomit waxaad matagi doontaa buu yiri. you will vomit waxaad matagi doontaa the milk caanihi. okay, the milk caanihi
that you have socket meesha ereygan socket waxaan ka rabaa meeshan uuda you baan ka rabaa marka meeshaas you ka dhigo okay the milk caanihi that you have socket ee aad ka soo jaqday yani okay from your mom hooyadaadii I'm kusoo celiyo I admire her speaking hadalkaaga ayaan jeclaysto aan la dhacay because after you are speaking as a hero like waxaad u hadlaysaa sidii geens anigoo kale ah laakiinse I am gonna say you waxaan doonaa inaan ku yiraahdo fit down the ground yani stitching if not hadii kale you will vomit waxaad ma tagi doontaa the milk caanihi that you have soaked from your mom ee adigu aad ka soo jaqday hooyadaada meeshaas marka your laga rabaa soo waxa ka maqan halkan aara ka maqan ku darso kala soo boodiyo wuxuu yiri marka zip your stinky mouth yani zip your stinky mouth afka wasaqaysan ee soo shiiray yani xir buu yiri zip your stinky mouth xir afkaaga soo uraya ama soo shiiray yani and get your broken English out of here ingiriiskaaga jabkaana halka kala taga oo kala ordo buu yiri okay aan kusoo celiyo zip your stinky mouth xir afkaaga wasaqaysan yeah and get your broken English out of here ingiriiskaaga marxay jabkaade waxa way qaladku ku buuxaya halka igala hortaga buu yiri and get your broken English out of here ingiriiskaaga jabkaana igala hortaga halka buu yiri oo iga tag okay so halkaas ugu yaashaku qaybta dictation kan eegana erayadan fiirinayna so erey ugu hore waxa la yiraahdaa quivering means waa jarayn yani quive shaking ayaa la macnaa marka quivering means waxa way waa jarayn quivering waxa way waa jarayn yani quivering waa jarayn waxa ku xigo erey loo yaqaano sweeting means waxa way waa dhidid yani waa dhididna waa la yiraahdaa so marka sweeting waa dhidid way okay sweeting dhididna waa dhigi kartaa okay saa jeceshahay sobbing waa oohin yani ama calaacalit yani sobbing wax qaniineen oo kale sabab muxuu sameeyaa waa uu ooyaa soomaha uu barorto okay marka sobbing waa barorasho ama yani waa oohin yani saa jecesha ama calaacalit yani okay erey ku xigo waxaan leenahay fatting do you know this word ma garanaysaa ereyga fatting yani waa dhuusid wey ama dhuuso ama dhuusid yani fatting oh you are fatting the class so please get out ahead of me please yani fasalkaad ku dhuusaysaa horteeda ka leexo iga tagaa dhigi kartaa qofka marka fatting yani si shactira leh unbaa loo isticmaalayaa marka xumeyn ma yani marka waa kaasa maadaama book dhan uu yahay yani oo shikeysi daandaansi ama waabsi oo soo gelina ereygaas marka xumaan loo isticmaalo insha Allah marka si shactira oo kaliya fatting yani waa dhuusid wey ana soo xigo ereyga waxa weeye shanaad oo afraid of means waa cabsasho afraid of cabsasho are you afraid of me ma cabsanaysaa ali karta afraid of cabsasho disgraced يعني شرف دعوة disgraced يعني شرف دعوة قف إن شرفتي سمرة ولا على واحد كشيء يعني سواء كان ركعت كجد يعني شرفتي سا و disgraced يعني أنا also حقو admired means وحوي challenge admired وحوي challenge so إرجع وحنا معنا like challenge love challenge interest sometimes what challenge keen on ama fond of kahelit ama challenge isku meesha loo soo marka eraasha soo la micnaa isagana admire yani challenge way isagana ereyga hero means waa brave yani waa ginsi way yani I am a hero anu ginsi baan ahay laakiin gabadha markay tahay I am a heroes heroes yani gabadha maxaan leenahay heroes is amu dareena heroes gabar markaa tahay ma dhihi kartid ya waa ka mamnuuc ereyga inaad isticmaashad oo hero ah yani أنا هذا وحكام منوع يعني I am a hero على غربة ما نينا تعال مايا وحلا غرنا ترى هذا I am a hero's girl I am a hero's girl so please okay get out of my class yeah مركا heroes وحقدر سنة سجبرة داتاي EST قدر سنة EST قدر سو تسافو استعمال أنا also حقهم أنا قد بينا نجا وحنا also حقهم إريك سجالات واحد ground means waxa weeye waa dhul weey sagxad dhulka waa la yiraahdaa ground imisa ereybad garanaysaa oo ground la micna ya so waxa la micnaa waxa loo yaqaano land si la mida ereyga earth yani waa dhul weey so ground is la mida
ugu dambeyn erigan waa error ku jiro qalad ku jiro as grammatical ahaan yani soo marka meesha halkay ku qoran tahay erigan laba qaab loo qori karaa halkan ooda u waa inaad ka dhigtaa marka hore inta halkaas u soo marka halkaas ay waxa ka dhigaysaa markaas u ka dhigaysaa socket ayuu noqonayaa sidaas ayuu sax ku noqonayaa misadii kale halkan u aad ka dhigto oo halkaasna waxa weeye halkaasna markaas dhexdaasna inta u dhaxayso xarafka k iyo e labada xaraf inta u dhaxayso ina xarafka l soo geliso socket la yiraahdo marka socket waa sax weeye socket waa sax weeye marka waa jaqad weeye waa yani nuugid weeye ilmaha yani maxay sameeyaan hooyadooda yani way nuugaan oo maamse waxa weeye way jaqaan soo marka waa nuugid weeye erigaas ama jaqad weeye adba saad u taqaanto qaado casharkeenana halkaas uu ku yahay casharkan waa casharka saddexaad waxaa soo socdo cashar kale aad iyo aad marka aad muhiim u ah adigu ku anfici doono soo waxaan rajeynayaa in insha Allah ka faa'iideysan doonto أنا وقت بحنايا هذا وقت سجاج بحن كفاية وقت إن شاء الله سبسكرايب من إلاوانيا وحنقولون هاي تضوكن أو سبسكرايب حنقولون هاي هذا ما سنتين من الوقت